kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena ku soo dhawaada xafiiska cusub ee BBC-da ee ah xafiiska ugu weyn ee BBC ka hirgelisay meel ka ah dibadda dalka UK. waxaan magacaygu waa Firdowsi Cismaan Xaashi waxaan kamid ahay shaqaalaha BBC waxaan diyaar u ahay inaan tusiyo qaybaha kala duwan ee xafiiska nagan cusub soo raaca. qaybahana u joodaan waxay kala yihiin qaybta caafimaadka oo dhinacayga midig ah. qaybtan waa qayb gaar u ah dumarka oo barnaamij ah looga hadlo arrimaha dumarka quseeyo. dhinacaas kale waa qaybta social baraha bulshada ama digitalka ee BBC Africa. dhinacan kale ayaan aadi doonaa soo raaca. qaybtaana waa qayb kamid ah BBC Africa iyo qayb kamid ah qorsheynta iyo qayb kamid ah maamulka BBC-da dhinacan iyo dhinaca horteeda waa tusi kartaa. asxaabtana daawanaysa qaybtan waa qaybta kale ee BBC-da waa qaybta luqadaha sida Soomaaliga BBC Somali Tikrinya Swahili kurti dhinacan ay ku wada joogan shaqaalahooda kaalin u tusay. qaybtan waa qaybta BBC Amharic Afaan Oromo iyo Tikrinya. qaybtana waa qaybta BBC Swahili shaqaalahooda meeshan ku sugan. ugu dambeynna ku soo dhawaada qaybta BBC Somali halkan ayaa shaqaalaha BBC-da ka howlgalaan BBC Somali. haddana waxaan sii gelinaa mid kamid ah xafiisyada BBC-da shirka lagu galo magaciisa waa u joodaan Muqdisho. waxaana hadda meeshan fadhiya Cabdullaahi Cabdishiiq oo ah taftiraha BBC-da laanta afka Soomaaliga. Cabdullaahi say waqta aad ayaad u mahadsantahay Firdowsa. xafiiskii hore haddii aad kan u barbar dhigtid kii hore wuxuu ahaa hal qol oo weyn oo ilaa 40 ilaa 50 qof qaadaya dhinacyada studio ayaa kaga yeelay marka si loo fiiriyo qalabkii yeelay iyo aad ayuu ciriir u ahaa qofka marka martida xitaa aan keenna waxaana la dhihi jiray ma halkaan aad degantiin. laakiin kan haddii aad aragtid dadka uu qaadaya waa ilaa 300 dad ku dhawaad ah. dhinac dhan ayaan leenahay qaybta Soomaaliga. qolalka shirarka waad arkaysaa mid kamid ah Muqdisho ayaa loogu magac daray. xitaa sawirada aan ku dhagsanay haddii aad arkaysid waa sawirro ka tarjamaya dhaqanka Soomaalida iyo waxyaabaha Soomaalida gaarka u ah. geela ku jiro, masaajida ku jira, waxyaabihii lagu dagaalami jiray ku jiro iyo gabdha Soomaaliyeed oo dhaqan ka tarjamaya. marka waa qol markii loo fiiriyo laanta af Soomaaliga iyo xafiiskana cusub waxaad leedahay aad ay isu qaadanayaan oo waa wax maaragtay is leedahay waa la isu sameeyay. dhan waxay astaan u yihiin sida ay BBC-da bariga Afrika. asxaabtana daawanaysa markaana waxaan aadaynaa qaybo kale oo kamid ah xafiiskan weyn ee BBC-da. ضيفة فضل الصنفعي هذا كان حضرت أنا قيبها كلا حفيز كان محايد أنتو سينا يا حذيفة. أنا مجاعي واحد ضيفة هذا نحن نشقى BBC أفريقيا قيبة جناحسية مرة بنكو سبيل هالكن صدق بلاد بنك شقينا يا أنت أنا هالكن ما نحن شقين شري TV ذا كان متكملة لكن واحد يقص الصعدة أن تصو قيبة عصبة هذا اللاجئ كل جين سيد توم بانهاي أو دنا قيبة جناحسية كشقيس كل جين مرة بنكو سبيل BBC ذا وديبارتمنت عصب سووا جدا. all these reporters وحاول the finest business reporters جناحسي وفي عن أفريقيا marka waa qayb cusub aan hadda bilawnay waxyaalaha programmadan hagaajinayno waxaan u hagaajinaynaa in laga sii daayo TV-yada Afrika si ay u arkaan dadka Afrikaanka wararka ku saabsan ganacsiga ee meel walba ka imaanaya Nigeria, Somalia, South Africa, Kenya, Egypt, meel walba 55 African countries ka imaanaya. macnaha Soomaaliga zaid ma fiicna laakiin hadda saa u jeedaan dadka waxay u shaqeynayaan maanta programka ugu hore oo maalinta ka soo bixi doona qaybtan baan bilaaweynaa. marka dadkan saa u jeedaan hadda waxay diyaarinayaan programka waa very busy as you can see. waad u jeedaan dad nooc walba ah waaye waxaa ku jira Jason oo wadanka Kenya u suun gareyn jiray ka qayb qaatay maxaa la yiraahdaa ciyaaraha wadankan. ninka Larry Madowo ayaa ah marka ninka u sareeyo meesha qaybta ganacsiga ninka u sareeyo. marka Larry you can say hi. Hi. BBC Somali and Hi, just introduce Somali. Set a high. Hi. So basically وأصاد وجدان مركزتكم مشغول سيهين وحاجتنا البرنامج ككواد أو كسر بحلها في إنجليزكا أو ما نو بنا كسر بيدونه
TV kala duwan TV Uganda laga soo deyn doona NTV Uganda Zambia laga soo sideyn doona Nigeria laga soo sideyn doona wadamo badan oo Afrikaan ah hadana waxaan u programmadan diyaarinayno waan ka soo sideyn doona insha Allah laakiin saan ni sheegay mar labaad dadkan waxa waaye reporteradii ugu fiicnaa qaybta ganacsiga Afrika kulligeen waxaan ka nimaanay qaybo kala duwan iyo TV kala duwan waana wada cusubnahay 3 bilood ba halka ka shaqeynayna marka 18 baan nahay saani sheegay mar labaad marka dhinaca ganacsiga intan anaga u weyn dhinaca xafiiskan Nairobi anaga u weyn 18 baan nahay 18 of us so marka ila soo socdo waxa dhinaca kale aan geey ay qaybta ganacsiga kadib marka dhinaca kale jirto waa qayb cusub ayadana BBC hadda ay hagaajiyeen waxay fiirinayaan arrimaha ku saabsan wararka oo nasaxnayn mise kuwada fake news ay yiraahdaan oo hadda in waayahan batay oo hadana ka baxayaan social media sida Facebook iyo Twitter ay ku shaqo leeyihiin waxaan soo saaraan programyo ku shaqo leh wararka qaybahooda kala duwan iyo say xaqiijintoodii wararka qaar kood ba hadda waayaan sad aragteen arrimo badan oo maaragtay aanan sax ahayn ayaa meelo badan laga soo siidaa marka dadkan teamkana u jeedaan Richard Kagoy iyo Newton waa ugu sarreeya kooxda oo ayagana mar dhow waa la keenay meeshan 3 bilood bay ka shaqeynayaan sidii qaybta ganacsiga aan sheegay Newton, if you want to say hi, BBC Somali. Say hi. We usually say hi. So, kuwan kalena waa ay kamid yihiin programka diyaarinayaan mar dhow wararkoodana waxay ka soo bixi doonaan African TV stations aan hore ugu sheegay ilan wararkan dhan aan diyaarinayno iyo showyadan aan diyaarinayno waxa laga soo sideyn doonaa maxaa la yiraahdaa TV-yadan ee Afrikaanka ila soo socda hadda qaybtan kale aan soo fiirinay u dambaysa meesha fadhiyaan maxaa la yiraahdaa ciidamada farsamada qaarkood meesha qaybta fadhiyaan laakiin saad u jeedaan hadda sawiraantan quruxda badan waxay tusinayaan dad kala duwan oo Afrikaan ah waana sawiraan BBC shoot gareysay oo zaad u qurux badan sad as you can see marka if you can walk with me dhinaca kale qaybta dadkii u dambeeyaan soo tusaya qaybtan hoose هذا يا أما سنتي حديفة وحنصوت السياقة بكمل حفيز كعصب حدث صدان أصحابنا الدعوانة سعادة يا أم هاتشنتهين أنت سيمكسو قبل إن برنامج كي أيضا كنت سيني قيبها كمل حفيز كعصب BBC ده كير جلسة مقالة نيروبي